qaar ka mid ah ciyaartooyga gobolka Togdheer oo shir jaraa'id maanta ku qabtay hotel Nasi ee magaalada Burco ayaa eedeymo u jeediyay wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliland iyo madaxda wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer isla markaana shaaca ka qaaday khilaaf baasan oo ka dhaxaloosan kooxaha ciyaaraha gobolka Togdheer xubnaha ciyaartooyga shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii 18 May halkaas oo ay ku ciyaarayeen gobolka Hawd iyo gobolka Togdheer isagoo maayirku qaabilay gobolka Hawd markii ciyaartii loo diyaar garoobay ayaa waxa dhacday waxa istilay laba mas'uul oo ka tirsan wasaaradda isboortiga mid ka mid ah ayuu nabar gaaray marka barasaabku waxa uu ku dhawaaqay in la joojiyo ciyaarta wasiirkii isboortiga oo aynaba joogay ayaa soo garaacay ay hoggaanka ciidamada waxa uu ku yiri ciidamada ciyaarta joojinaya ee garoonka ka saaraya dadka igala hadal sidee u joojiyaan ciyaarta waxa weeyaan marka wasiirku waxa uu tala galay in ay beelo ku ciyaarto meesha ciyaartooyga gobolka weysayeen gobolka khilaafa ka taagnaa arrinka foosh xun leh ka taagan gobolka waxa ka dambeeyay ma isuduwaha isboortiga wasiirka ciyaaraha waxaan anagu leenahay arrinta hadii wax si degdeg ah ay xukuumaddu wax uga qaban weydo wixii dhaca iyadoo ba ka mas'uul xukuumaddu amaanu nahay ciyaartooyda gobolka Togdheer annagu halkan waxaan ka dhaleecaynaa maamulka isboortiga oo ugu sareeyay wasiirka ciyaaraha uu ku xigo isuduwaha gobolka Togdheer waxaan leenahay annagu xul baan nahay waanu matali doonaa xulkaan nahay hadii burco wax laga qaban waayo hawsheeda burco waxa ay ku imanaysaa laba xul kulay dhaawacyo deesaa gacanteedii nii muuqatay marka dhaawac baan qabaa inama kale ayaguna nala mid dhaawacyo qabaan kulay madaxa meel la taabto ka sareysa ma jirta madaxweynaha Soomaaliland waxaan u sheegnaa Axmed Maxamed Siilaanyo kulay maxay ahaday khilaaf burco ka taagan khilaafkaana kulay wasaaradda isboortiga weeyaan gobolka Togdheer hadii aan sida uu yeemka laga soo gaarin kulay wixii dhacday maamulka gobolka Togdheer un baad arintaade ku shuqul khilaafkan ka dhaxaloosan kooxda ciyaartooyga gobolka Togdheer kuma koobna iyaga oo kaliya ee waxa uu ka dhex jira mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee gobolka sidoo kale qaar ka mid ah ciyaartooyga hore ee gobolka Togdheer oo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa iyaguna ku baaqay in wax laga qabto khilaafkan ciyaartooyga soo dhex galay inta aanu faraha ka bixin wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Soomaaliland mudane Cali Siciid Reegal oo maalintii Sabtidii soo gaadhay magaalada Burco lana filayay inuu khilaafka wax ka qabto ayaa isagu dhagaha ka furaystay isla markaana uu ambabaxay dhinaca magaalada Hargeysa bishii January ee sanadkan ayaa ahayd markii agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliland uu soo dhex galay khilaafka ka dhex aloosan wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kays Axmed Dagaale Home Cable TV Burco.